dadyow darajiyo inaad mudan tahay daryeel dastuurkani ka baro mudan tahay daryeel dastuurkani ka baro xuquuqiyo dadyow darajiyo inaad mudan tahay daryeel dastuurkani ka baro mudan tahay daryeel dastuurkani ka baro بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيه برنامج كيني فريدين الدستوركا برنامج كان وحاه إنه صد يارسه وسارة دارمها الدستوركا يحرير كلياشة أو كاشان يسوي سارة دور فافينتا مانتا أما 10 كينن وحا إنه كيجينا قضبكا تطبيق لباتنات الدستوركا جمهورية الصوماليلاند أو كهدليا حق قفكا حرية لقا قاضي وحا برنامج كفلانقيتي سيقال قيب قليا قريقان خضر محمد أحمد عربي قريقان كايان شعلاي مركا كواد inaan barnaamijka ku soo dhaweeyo gareeqan ku soo dhaweeyo barnaamijka maanta sikari waana ku dhaweeyo barnaamijka casharkan waxaynu ku eegaynaa xuquuqda qofka xorriyada laga qaaday bal ugu horreyn marka hore waxaan jecelahay inaad sharaxaad guud aad ka bixiso qodobkan macnaha guud iyo muhiimadda uu leeyahay runtii aad baad umahadsan tahay markaad eegto waxaynu ku soo guda jirnay oo aynu runtii weli sii wadnaa xorriyaadka iyo xuquuqaha iyo waajibaadka saaran qofka muwaadinka iyo mujtamaca kale wadankeena inay degan sifooyinka sharci ku degan oo ka soo bilaamayay xubinta saddexaad ee dastuurkeena oo ka bilaabanta qodobka 12aad qodobada hore ka soo hadalay waxaynu ka soo hadalay waa ugu dambeeyay in xasuusiyo dhageystayaal badda wadayaal qodobka 25aad iyo qodobka 26aad dastuurka oo labaduba ay ka hadlayeen qaabka wax loo xidho cidda wax xidhi karta hanaanka qofka xorriyadda looga qaadayo qaabka loo baarayo qofka amaba loo xayirayo taas oo aynu tilmaanay awoodaha xariga iyo xayiraadda inay leedahay maxkamaddu marka laga hadlayo asaasi ahaan walow ay jiraan xaalado ka reeban oo qofka lagu xidhi karo amar la'aan maxkamadeed oo ah sida dembi isagoo faraha kula jira oo aynu casharadii hore ka soo hadalay sidoo kale waxaynu ka soo hadalay qodobka 26aad oo isaguna ka hadla waa maxay faldembi iyo ciqaabi oo aynu soo tilmaanay inuu faldembi yahay fal kasta oo uu xeer ka dhigay faldembi kaasoo qofka ku mutaysan kara ciqaab xeerkaasina waa xeer ciqaabeed ciqaabtuna waa ciqaab kasta oo faldembi uu xeer u jideeyay waxaana reeban in qofka la saaro faldembi runtii aanu xeer faldembi ka dhigin loo ciqaabo amba ciqaab xeer aanu jidayn in qofka lagu ciqaabo la saaro inahaasaynu ka soo hadalay qodobadaasi waxay ka hadlayeen qaabka qofka xorriyadda looga qaaday iyo falalka nooceeya qofka xorriyadda looga qaadi kara qofka xorriyadda waxa looga qaadi kara markuu faldembi uu galo weli haddaba waxaynu ku sii jirnaa qodobadii ka hadlayay qofka xorriyadda laga qaado habka looga qaado maanta waxaynu geli doonaa xuquuqaha qofka xorriyadda laga qaaday casharada waxaan soo baranay xorriyadda ayaa ka qaadi kara sidee looga qaadi karaa xaaladihii qofka xorriyadda laga qaadi karaa maanta waxaynu baranayna qofka xorriyadda waa laga qaadayba muxuu xuquuqa yeelanayaa marka isagoo garsuga ah amaba runtii aan weli maxkamad la horgeyn muxuu yeelanayaa xuquuq ayaynu ka hadlanaa qodobkan aana ka hadlaya runtii qodobkan markaad eegto wuxuu ka kooban yahay runtii waa qodobka ugu dheer marka laga hadlayo qodobada ka hadla xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadiniinta 8 ilaa 36 marka laga soo bilaabo dastuurkeena oo Soomaaliland xuquuqda qofku leeyahay ay qodobadaasi ka hadlaan oo kala duwan markaad eegto waa qodobka ugu dheer runtii ahmiyad gaar ah waxa baarsan yahay xuquuqda ugu horeysa qodobka ka hadlayo qofku yeelanaya waxa weeye marka xorriyadda laga qaaday la xidho inuu la kulmo sida ugu dhaqsaha badan waliba uu la kulmo qareenkiisa qaraabadiisa iyo cidii kale uu codsado taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay xuquuqahani waa xuquuq asaasi u ah qofka xorriyadda laga qaaday waana xuquuq muhiim u ah inay muhiim yihiin oo lagu horeysiyo waa xuquuqaha ugu horeeya qofku yeelanayo sidoo kale marka faqradda eegto labaad ee qodobka 13aad wuxuu ka hadlayaa qofka marka xorriyadda laga qaaday in lagu horgeeyo maxkamad muddo cayiman oo 48 saacadood waliba 48 saacadood waxay imanayaan marka amar maxkamad la'aan iyadoo amar maxkamad loo haysan oo dembigii faraha kula jiro xorriyaddii laga qaaday ayaa waxay tahay ciidamada bileysku ama ciidamada amnigu in si ugu saha badan 48 saacadood gudahood ay runtii ugu geeyaan maxkamad horteed qofkaasi si ay xadhigiisa u xalaashadaan sababtoo xorriyaadka qofka iyo xuquuqaha waxa ka masuula ilaalintooda maxkamadda ka masuula maxkamadduna maadaama tahay cidii lahayd xadhiga asaasi ahaan muddadii la siiyay aynu ka soo hadalay dambiga qofka faraha kula jiray laamaha amniga la siiyay ama qofka muwaadinka inuu si degdeg ah qofka uu xorriyadda uga sii qaadi karo ama xeer ilaalintuba ama garsoorba isagoo amar soo saarin ee ka hadlayo qodobka runtii 34 xeer kabka ciqaabtu markaasoo kale waxa la rabaa in 48 saacadood gudahood ay ka horgeeyaan maxay markay ku wareejinayaan ciidamada iyagu runtii booliiska oo qofkii markuu soo xidhay si degdeg ah u soo xidhay qodobka farstaan sheegayo ama garsoorka ku soo xidho amar la'aan maxkamadeed isagoo amar soo saarin
ama wax raaliyaba uu soo xidho qofkii dambigii faraha kula jira 4 saacadood gudahood ayuu dastuurkeenu tilmaamaya in qofka xadhigiisa maxkamad lagu horgeysanayo maxkamadaas oo maxkamadda awoodda u lahayd waana ka soo xalaalsanayaan waxaana loo siiyay awoodan sida mar hore soo tilmaanay ciidanka amaba xubnaha kale oo tilmaamay awoodan leh si ay suuragal noqoto in amniga qaranka la ilaaliyo amniga qaranka ma ilaalin karaan oo kaliya ciidanku shacabku role bay ku leeyihiin ama door bay ka ciyaarayaan garsoorku door bay ka ciyaaraan xeerlaantu door bay ka ciyaaraysaa si markaa waa waajibaad guudayna wada saaran marka qofka la xidho markaa muddada waa lagu horgeeyaa maxkamad sidoo kale isla qodobkan faqradda saddexaad wuxuu sheegayaa arrin muhiima qofka marka xorriyadda laga qaado la xidho nugul ayuu qofku noqdaa qof nugul buu noqdaa wuxuu u nuglaadaa runtii oo uu nugul yahay in xadgudubyo loo geysto ama laga qoro qiraallo ama xog runtii aan dhab ahayn ama qofka la cabsi geliya ama jirdilba lagu sameeyo sidaa awgeed qodobkeenu isagoo taa ka duulaya dastuurkeenu baan u jeedaa gaar ahaan qodobkani faqradda saddexaad wuxuu diidayaa oo reebayaa marnaba in qofka lagu khasbo inuu bixiyo qiraal qasaba amaba dhaar qasaba amaba uu bixiyo xog isagoo khasban sida marag furid oo kale taasuu diidayaa sida oo kale marka laga hadlayo xog kasta oo qofka inta uu xidhan yahay laga helo oo qasab ama dirqi lagu helo qaanuun ahaan waxay noqonayaan mid buraya lana adeegsan maayo xukuna lagu salayn maayo waxaanu noqonayaa fal xaaraana sababtoo ah qaabka lagu helay hadday tahay qaab qasab oo baalmarsan dastuurku wuxuu diidayaa in qasab xog qof lagaga soo saaro isagoo xidhan ama dhaar ama marag ama xog kalaba haddii marka ay dhacdo in qofkii la khasbo xogtaa la helo xogtaasi qaanuun ahaan sifaha yeelanaysa waxa weeyaan waa sifo xaaraana lana adeegsan maayo wayna buraysaa sababtoo haddee dariiq xaaraana lagu helo wax kastoo dariiq xaaraana lagu helaana runtii xalaal ma noqdo sharcigana waxaa la yidhahdaa marka laga hadlayo fal kastoo runtii xaaraana xuquuqa kama dhalato da soomaalida hore hadal dhamayso waxay tihi nirig hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho runtii marka laga hadlayo shareecaduna ka hadashaayo wax kastoo de xaaraan lagu aasaasaa oo masale kamid a masalooyinka shareecada marka laga hadlayo wax kastoo xaaraan lagu aasaasaa waxa kasoo baxaana xaaraan buu noqdaa sidaa awgeed cadaymaha iyo marfurka noocaasa ee qofka qasab lagaga soo ama dirqi lagaga soo saaro la adeegsan maayo hadday dhacdana waxaad gudub dastuuriyaba waxaaba laga yaabaa in ciddan keentay in qofka la khasbo in maxkamadda soo joojiyo dastuuriya sababtoo waa arrin xadgudubka xuquuqda iyo xorriyaadka dastuuriga ee muwaadinka ama qofka soo dalkeena da jooga oo eedeysana runtii xaq u leeyahay inaan la khasbin ama aan loo geysan wax runtii lagu khasbayo lagaga soo saarayo xog runtii qasabkaasina siyaabo badan buu ku iman karaa jirdil buu ku iman karaa cabsigelin buu ku iman karaa xitaa ballanqaadkaa soo gelaya qofka loo ballan qaado iyadoo qof kale la baxsiinayo inuu isagu uu runtii inuu dembiga sameeyey uu qirto qof magac leh ama maamuus oo kale iyadoo la baxsiinayo ama da loo qaadaba ama ballanba qofkii da loo qaado ayaa iman karto kadibna qofkii dembiga u qirta isagoo lahayn ama waxaa kamid iyadoo qofkii runtii lagu sameeyo tahdiid oo loo hanjabo la cabsi geliyana waa kamid waa mid reeba runtii waxaa dastuurku uu ka hadlayaa oo kale mid kasta oo arrimaha kamid ah oo qofka qasab lagu marsiiyaana waa waxba kama jiraan xaaraan weeytii imkaynu sharaxnay markaasi sidoo kale faqradda afraad ee qodobkan waxay tilmaamaysaa waxa reeban qofka in lagu xidho meel qarsoon oo sir ah ayaa reeban goobaha waxa lagu xidhaa goobaha saldhigyada aynu naqaano iyo goobaha aynu naqaano ee magacyadoodana la yaqaan dadku la yaqaanaan haddii ay dhacdo dawladdu ama dawladuhu inay goobo sir ay samaystaan waxay markaaba muujinaysaa in halka xadgudub jiro sidaa awgeed dastuurkeenu wuxuu diidayaa inta badan dawladaha dictatorka sameeyay inuu dawladda dimuqraadiyadna haddana waa laga digay in dawladdu samaysto goobo sir dadka ay ku xidho wuxuu ku waayayaa ehelkiisa ma booqan karaan lamana ogaan karo qofkii waana la waayayaa maxkamadii fursad uma helayaan qaranadii fursad uma helayaan warbaahintii xitaa ma ogaan karto qofkii xorriyadda laga qaaday sidaa awgeed qofki wuxuu u nugul yahay in xadgudub lagu sameeyo muddo dheer laska haysto ama lagu xadgudbo ama halkaaba lagu dilade sidaa awgeed ayay reeban tahay in goobo sira dadka lagu xidho waxaana lagu xidhayaa qofka goobaha lasla yaqaano ee dadka lagu xidho ee xeerar ku jideeyeen aynu tilmaanay saldhigyada goobaha kale xeerarka inoo tilmaamin wax lagu xidhaa ayaa kamid a runtii goobaha wax lagu xidhayo sharcigu ogol yahay xeer ayaa qeexaya ayuu leeyahay runtii qodobka muddooyinka ugu dhaadheer runtii markaasi qofka garsigo uu noqon karo xagga dambe aynu kaga jawaabi doonaa iyadana sina wuxuu kale xaq u leeyahay inuu rafcaan qaato xaqa rafcaanku waa xaq muhiima rafcaan marka laga hadlayo waxaynu ku qeexi karnaa waa xuquuq uu qof xukun maxkamadeed ku dhacay uu xaq u leeyahay inuu maxkamad ka sareysa inuu rafcaan qaato isagoo qoraal sababaysan u gudbinayo maxkamadii sare durayana go-aankii hore waxaanu ku duri karaa in maxkamadii hore cadaymihii amaba dhacdadii runtii dhacday ama dembigii lagu soo eedeeyey qofka iyo dhacdadii dhacday ama qodobkii lagu eedeeyo islahayn waa lagu duri karaa go-aanka maxkamadda ka soo baxay ama maxkamadda si qaldan u dabaqday qaanuunkii ama habraacii dacwadda oo ah nidaamkii xeerka ciqaabta oo si qaldan maxkamadda ay u dabaqday ama maxkamadda oo runtii tallaabooyin muhiima la doonayay dacwadda dhexdeeda inay qaadi weyday sida iyadoo cadaymo runtii ahayd inay sugi weyday qofkuna markaa uu tuusan yahay cadaymahaasi inaanay jirin ama aanay maxkamaddu ka gaabisay oo kale way iman kartaa runtii waxaan habboon qofku markuu rafcaan qaadanayo markuu durayo inuu ilaaliyo asluubta rafcaan qaadashada taa macnaheedu waxaynu ka dhigannahay marka go-aan la durayo amba xukun maxkamad la durayo waa in la isticmaalaa ereyo lagu ilaalinayo asluubta maxkamadda go-aan ka gaadhay sidaa tusaalahaan haddii la isticmaalo ereyada ah maxkamaddu waxay gaadhay go-aan xaaraan oo sharci darro ah
weerayaan ku habboonayn garsoorka iyo marka laga hadlayo maxkamadaha sharciga sababtoo ah waxa habboon in la tilmaamo inay maxkamaddu ilduuf sharci ay samaysay ama maxkamaddu sidii loo ragay aanan qaanuunka u dabaqin ama maxkamaddu ay qalad fahantay dhacdadii amaba cadaymihii la hor keenay ama maxkamaddu cadaymo rasmiya aanay u cuskan dacwadan taasoo ay ku timid ilduuf xaggeeda ka timid inta badan dee garsoorayaasha maxkamadda runtii maamulaya waa aadami qaladku ka dhici karaa sidaa awgeed ayaa maxkamad ka sareysa qofkii uu la tegaya isagoo asluubta maraya shuruudaha la rabaa markaa rafcaanka qofku inuu buuxiyo oo ah waa inay jirtaa qodobo sharci oo maxkamaddu markaasi baal martay ama ayna sidii loogu talagalay u dabaqin oo ay ku gaftay waa inay jiraan markaasi ama cadaymo runtii ku habboon maxkamaddu cuskatay ama cadaymahan oo aan jiritaankooda sharci su'aali ka taagantoo kale ay maxkamaddu cuskatay ama dokumentiyo runtii sharci ahaan runtii aan asal ahayn maxkamaddu cuskatay qofku markuu taa aaminsan yahay maxkamaddu iyadu markay cuskanaysa dabcan dee waxay u arkaysaa mid sax darajada koowaad oo kale tusaale ahaan laakiin hadduu qofku uu jiro inuu tuhun noocaas uu qabo isleeyahay waa cadayn kartaa marka halkaan qof ka tirsanaya uu rafcaan qaadan karaa xaqa rafcaankuna waa xaq aasaasiya oo dastuuriya oo qofku uu leeyahay runtii xukunku ku dhacay kaasoo runtii ah mid qof kastoo dee aadami uu yeelanayo lagamana hor istaagi karo qofka xaqan loomana diidi karo inta badan waxaan odhan karnaa hal mar unbaa malaha ay imanasaayo dee qofku hadduu dhaarto malaha xaqii rafcaanku markaa jiri maayo dee inaguna ummad islaam aynu nahay oo dhaarta waxaa loo jideeyey in lagu kala baxo oo lagu kala hadho marka cadeymi la waayo qof markaa hadduu dhaartay xaqaa rafcaanka waa marka keliya odhan karno dee qofkii hadduu iimaan leeyahay inuu ka istaagay tahay oo aanu qaadan laakiin inta kaloo dhan qofku rafcaanka wuu qaadanaya xaqna uu leeyahay inuu rafcaan qaato qiraalkoo kale markaa qaarkood doodaa la geliya qofku hadduu qirto rafcaan ma qaadan karaa way keeni kartaa sababo qofku rafcaan ku qaato haddii marka hore ay jiraan wax uu qalad fahmay ama xagga dambe ka soo baxday ceeb way iman kartaa inta badanna qofku hadduu qiraal runtii uu qirtoo kalena ma dhacdo inuu rafcaan qaato laakiin hadduu qiraal sameeyey qaanuun ahaan maadaama xuquuqda tahay xuquuq dastuuriya kaasan maysa in loo diido waa loo banaynayaa sababtoo ah xaqan rafcaanka waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo qofka haddii xadgudub ay maxkamaddu ka gasho in maxkamad ka sarreysa ay saxdo oo inta badan rafcaanku waa 3 darajo soomaaliduna waxay tirahdaa gar 3 geed baa laga helaa oo berigii hore markaad eegto sikriyow soomaalidu garteennii dee aynu asaasi ku lahayn geedka hoostiisi geedka koowaad ka labaad ka saddexaad saddexdaa geedba garta laga heli jiro oo markay guddi gasho waa diidi kartaa guddidii labaad haddana tii saddexaad sidaas lamida darajooyinka maxkamadahuna waa 3 darajo markaa darajada koowaad haddaad ku qanci weydo go-aankeeda rafcaan badooda xaq inaad qaadato talabaad haddaad ku qanci weydana tii saraad u qaadanaysaa waxaana loogu talagalay rafcaankan xaqa rafcaanka in lagu saxo qaladaadka ay gelayaan maxkamaduhu sababtoo ah mar walba way ka dhici karaan maxkamadaha qaladaad kaasoo ku salaysan faham darro ku salaysan garsooruhu inuu dhinac u xagliyo qofkani waa aadame amaba uu dhexdhexaad noqon waayo kale iyo way kaysan kartaa waliba dad dhexdhexaad noqon waayo ama way ku dhacdo inuu garsooruhu xadgudub sameeyey waxaa laga yaabaa in anshax iyo talaabo marka ay keensanto in la mariyo marka xaqani waa xaq asaasi waxaana loogu ilaalinayaa cadaaladda marka inuu qofku cadaalad u helo si ayna runtii qofkii ugu dhicin xukun xadguduba ama xukun hadhow toola runtii sharci ahaan aan sax ahayn si aan ugu dhicin sidoo kale marka laga hadlayo faqradda sideedaad waxay ka hadashaa xabsiyadu marka laga hadlayo mabdi'iyan maxay yihiin waa goob qofka lagu edbinayo oo lagu saxayo runtii waana goob loogu talagalay dhaqan celin maaha qofka lagu cadaabayo qofka asluubtiisa iyo dhaqankiisii marka hore qofku wuu qalloocsamay waxaanu ka leexday dariiqii saxda ahaa ee mujtamaca ayuu ka leexday runtii ahayd inaanu la iman maxay xadgudub iyo dembi waxaanu ka leexday sidii ilaahay u abuuray ahayd ama ilaahay u noolow ayuu ka leexday xadgudub buu geystay iyo fildembi sidaa awgeed xorriyadda marka qofka laga qaado xabsiyadu wax marka la geeyo xabsiga waxa lagu talagalay goob sixitaan iyo dhaqan celineed runtii inahaasaan aan kusoo koobi karnaa aad baad garan u mahadsantahay sida fiican ee aad sharaxaada dheer aad uga bixisay waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo baaritaanka qofkan laga qaaday xorriyadda intee in leeg buu socon karaa runtii marka laga hadlayo qofka marka xorriyadda laga qaado intee in leeg ayuu garsuga noqon karaa ama baadhistu ay socon kartaa oo intaan la soo gudbin eediisa horta qofka marka koowaad dee la xidhaba haddii wanaga nidhi 4 saacadood gudahoodii laga xalaalsanaya maxkamadda marka la xalaalaysto qodobka xeerka habka ciqaabta 740 ayaa wuxuu tilmaamayaa farada koowaad muddooyinka qofkan garsugo uu noqon karee lahayn karee galkiisa lahayn karee baadhida dacwadiisu ay socon kartay eediisa intaan la soo gudbin ama intay booliisku iyo xeerlaalintu ay awood u leeyihiin in qofkan ay sii wadaan baadhistiisa oo uu garsugo qofku noqonayo runtii muddada ugu dheer waa 9 cisho sidoo qodobka 740 uu dhigay xeerka habka ciqaabta waliba markay dacwadu tahay mid dhacasa awood ahaan maxkamadda darajada koowaad ee gobolka qaybteeda tashiga maxkamaddan darajada koowaad ee gobolka ayaa 2 qaybood u kala baxda qayb caadi qayb tashiga waxay qaadaa dacwadaha culus 10 sano ka sareysa waliba 9 cisho wuxuu imanayaa markii uu yahay qofkan dambiga lagu eedeynaya mid xukunkiisu uu noqonayo dil amba xabsi daayin ee 9 cisho qofka lagu soo gudbinayaa gundhigiisa ama eediisa 9 cisho inta lagu guda jirana ama muddooyinka aynu sheegnay maxkamaddu
toddobadii cisho mar ayaa la horkeenaya rumaan ay bixinaysaa sida uu tilmaamayo qodobka 74 faqradii saddexaad ee runtii xeerka habka ciqaabtu rumaankana maxkamad ayaa bixinaysa sida qodobka 64 uu tilmaamayo rumaanku waa muddada qofku runtii amar maxkamaddu ay bixinayso weeyaan oo qofkan xadhigiisa loogu xalaalin qofkan inuu sii hayaan ciidanku si ay baadhistii ay u soo dhamaystiraan inta badan 7 cisho ayaa ugu badan wayna ka yareeyaan garsoorayaashan iyagoo dee u naxariisanaya qofku iyo 4 cisho iyo imika 5 cisho ba laga dhigaa laakiin muddada 7 cisho weyn muddada ugu badan lagu soo celin karo 9 ka cisho marka 7 cisho mar ayaa la horkeenaya waxaana looga dan leeyahay in qofkan booliiska aqoontiisa lala xisaabtamada ee baadhaha oo qofku iska haysan oo 9 ka cisho sugun maalinta ugu dambeysay inuu galkiisa keeno waxa la doonayaa in maadaama baadhihii uu codsaday muddo kordhin iyo inuu baadhistii wado 7 cisho gudaheed ku soo celiyo 7 cisho maxkamaddu waxay weydiinaysaa maxaad soo qabatay soo heshay maxkamaddu waxay halka ka hubinaysaa wala xisaabtan sidoo kale inuu soo shaqeeyo shaqadiisu gutay oo qofkan uu soo baadho wax ku hayo iyo in qofkii la iska haysto marka maxkamaddu waxay 9 cisho dhamaanba haday aragto marka koobaad uu yiraahdo waxba ma soo kordhin ninkii baadhaha ama askarigii baadhaha sargaalkii baadhaha muddada labaad 7 cisho marka 7 kale uu yiraahdo waxba wali waan wadaa oo cusubman keen waxa laga yaabaa maxkamaddu in mar saddexaad ay siin weyday qofka xorriyadiisa soo celiso ayaa laga yaabaa sababtoo qofkii baa la ilaalinaya 9 cisho mar walba la gaari maayo laakiin maxkamaddu inta ka sokaysa muddada waa ku maamulaysaa ciidankii mar walba ay hor keenay leedahay mar walba way xalaalaysaa isagoo marka asbaab laga rabo inuu baadhihii u sheego uu muddo kordhin ku dalbanaya marka iyo cadeemo dheeraad u heli karo jira marka inta badan dambiga ku xidhan tahay ciqaabta 60 cisho ayuu tilmaamayaa farada B ee qodobka 74 haduu dambigu dhacayo qaybtan tashiga laakiin aanu dambigu hayn dil amba xabsi daayin uu yahay laakiin dambi ka sareeya 10 sano kana hooseeya xabsi daayin iyo dil waa 60 cisho sidoo kale hadii uu dhacayo markaasi maxkamadda gobolka qaybta caadiga waa 45 cisho qaybta caadiga inta badan qaybta tashiga aynu soo sheegnay 60 iyo 90 waxa lagu galaa hal garsoore wax ka badan ayaa lagu galaa runtii oo qayb tashi weey oo koox garsoore la galaya iyo waliba garsooreyaal dadweyne oo inta badan qaar ka garanaya xaqaa'iqa oo runtii shacab caadi oo aqoon sharci lahayn ba garsooreyaal dadweyne ay noqonayaan garsoorahan kalena caadiga waxa loo yaqaan garsoore xukuumadeed wuxuu noqonayaa garsoore dawladeed oo dawladda runtii ay caadi u magacowdo oo sababtoo ah inta badan inaguma sida xagga waxaad moodaa in waxay ka yarmanto ingiriiska waxay isticmaalaan juuri garsooraha dadweynuhu nooc min juuri bay wara dhigmaan marka eegto oo waxay ka caawinayaan garsooraha waa shacab caadi oo aan aqoon badan u lahayn sharciga ama aan ahayn sharci yaqaan iyagu garsooraha waxay ka caawinayaan xaqaa'iqan iyo cadeymahan ka hor dhacaya marka eegaan hubiyaan qofkan inuu dambiga geystay kale fahankaasi garsooraha ka caawinayaan inuu go'aankii gaari karo oo go'aan cadaalad ah garsooruhuna wuxuu ka garsoorayaa qaanuunkii iyo xaqaa'iqiiba waxaanu ku maamulayaa runtii garsoorayaashan dadweyne wuxuu ku maamulayaa maxay sharciga maadaama isagu aqoon leeyahay ku hagaya iyaguna runtii waxay siinayaan fikir bay ka siinayaan xaqaa'iqii dhacday tanna waxa looga dan leeyahay cadaaladdu qof walba ku abuurantay cadaaladii guud in la ilaaliyo bulshada aragtideeda cadaaladeedna in la ilaaliyo ayaa tan looga gan leeyahay iyo inaanu qof kaliya dee go'aankii qofka laga qaadayo xorriyadda ama dilkii aanu qof kaliya ka go'aan gaadhin marka tashi baa lagu galaa wixii 10 sano ka sareeya marka dacwadaha tashka lagu galaya 9 cisho ugu badan markii dil iyo xabsi daayin tahay 60 cisho ku xiga oo dambiyada ka hooseeya dil iyo xabsi daayin 10 sano ka sareeya maxkamadda qaybta caadiga ee gobolka waa 45 cisho hal garsoore ku fadhiisanaya marka gobolka qaybta caadi hal garsoore dacwada qaado fadhiista degmada u timid degmada waa 15 cisho laba jeer uu diri karaa marka rumaanta inuu anaga 7 cisho rumaan buu diraya laba jeer baa maxkamadda qofkii uu garsooruhu diri karaayo 7 cisho marka 7 kale dambana la diro 14 cisho gudaheed dabaad ku keentay qofkan ADC waxaad ku haysatay iyo baadhisiisa dhamays oo kadibna maxkamadda qofkii dacwadiisii la oogaa oo la mudeeyay dhageysigii la bilaaba macnaha saas ayaa runtii aynu tilmaamanaa waan gartay barnaamijkeeni qodobka 27aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaa aad iyo aad buu mahadsan yahay gareeqan Khadar Maxamed Axmed oo barnaamijka falanqayntiisa inaga qayb galay intaynu barnaamijkan mid lamid ah aynu dib u kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo dastuurkiyo sharciga diinteena waafaqa dowladaha Afrika kaga duwan dada Somaliland isku duubni dhaban ducaysta amin